shirkadda Daarul Xanaan oo dalka keenta qalabka caafimaadka ayaa carwada caalamiga ah ee bandhigga ganacsiga Soomaaliland ku soo bandhigtay waxyaabaha ay dalka keenaan waxaana telefishinka SBC waraysi gaar ah siiyay mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaasi oo ku sugnaa carwada ganacsiga Soomaaliland isla goobta ay ku soo bandhigeen waxyaabaha ay dalka keenaan shirkadda Daarul Xanaan iyadoo arrintaasi faahfaahineysana mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkaddu waxay tiri dawdayaal waxaynu dhex mushaaxaynaa carwada ganacsiga Soomaaliland oo ah tii sideedaad ee lagu qabto Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay shirkado kala duwan imkana waxaanu ku dhex suganahay mid ka mid ah ganacsatada ka soo qayb gashay waa kamariga lagu magacaabo Daarul Xanaan oo keena qalabka caafimaadka imkana waxaanu wareysanaynaa mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaasi warreyn walaal ku soo dhawow telefishinka SBC mahadsanid walaal soo dhawanahay waxaad noo sheegtay bal iyagu shirkadan la yiraahdo ama aan joogno company-gan Daarul Xanaan idinku maxaad kaga qayb galaysaan carwada wala company-gan baan maxay keenay waxaan kaga qayb galnaa dadka jilba xanuunka hayo muruq xanuunka kale dadka ka cabanaya dhabar xanuunka masaajka dadka doonaya baahan dadka jajabka oo dhan waxyaabaha qoorta meelo badan oo maxay haytay qofka banaadamku u baahan yahay markuu excellent uu dhaco oo kale waxyaabahan keena marka dadka intaan kaga qayb galnaa carwada inta carwadu socoto dadka macaamiisha ah wax discount ah ama ma u samayseen qiimo dhibis ها بقولك بكنتم أنا سمعنا هالك كانوا كلامك وهاي 35 وحنا كسرنا $20 مركز أساسا قيمة دمستيد وساعتها كي $20 وحنا كسرنا $5 مركز أساسا كلا أنا دوسم هذا كوبا قصة برشلونة كداورنا إسا جارهان تذكر قلب كهذا هيسو أباهن waxaan hay dad qalabkii loo baahnaa ee dalabada oo kala laga maarmi lahaa oo maxay tahay aad quality-gooda u sareeyo wixii cidii u baahan waxaan leenahay naga soo xidhan Daarul Xanaan halkaas waxa ku taala moolkan Guuleed Hotel beejkiisa hore ee ku yaala meheradahan suuqa laamiga eegaya marka xagaan ka soo xidhan insha Allah aad baa mahadsantiin thank you Maxamed Jaamac Umal wararka warbaahinta SBC Hargeysa